soo dhawaada saaxiibayaal hoylkiina sirta filimis bal qiyaas haddii aad hesho noole qariib oo awood la yaab la leh laakiin haddana saas oo ay tahay dad khatar ay ku daba jiraan si ay u helaan noolahan qariibka arrintani waa mid ku dhacda Elisa taasoo xilligan cunto u diyaarinaysa dariskeeda geel maadaama Elisa aysan hadli karin saaxiibo badan maysan lahayn geelna waa mid ka mid ah saaxiibadeeda fahmi kara luqadda dhagoolada kadib markii ay waqti la qaadatay geel Elisa waxay raacday baski oo ay shaqada aaday markii ay shaqada tagtay Elisa waxay la kulantay saaxiibteed Selda oo ah saaxiibteeda ugu dhow labadooduba waxay bilaabeen inay nadiifiyaan dhammaan qolalka shaybaadhka habeenkii isla maalintaas Master Filmin oo madaxa amniga ayaa kooxda u sheegay in noole cusub la keenayo qaybta T4 noolahan uu yahay shayga ugu qaalisan ee abid soo gala shaybaadhkan markii ay aragtay haanti biyaha oo la keenayo Elisa waxaa galay xiisa ay ku ogaanayso waxa ku dhex jira way u dhawaatay si ay u aragto noolihii ku dhex jiray haanta ayaa bilaabay inuu isku dayo inuu baxo isla markiiba kooxdii ayaa haanta geeyay qolka compresska markii uu waagi baryay Elisa waxay tagtay gurigeeda geel ayaa banaanka taagnaa oo sugayay Elisa si ay quraac uga wada cunaan meherada roodhida nolosha Elisa ee maalinlaha ah sida ay iska ahay kaliya shaqada ay mararka qaar wax cusub ka dhici jireen maalin ay iyada iyo Selda wax nadiifinayeen labadooduba waxay maqleen dhawaq rasaasa Strickland ayaana shaybaadhka ka soo baxay waxay aragtay in gacmaha Strickland ay dhig leeyihiin dib ayay u istaagtay kooxda caafimaadkuna waxa u yimaadeen inay caawiyaan daqiiqado kadib markii ay labadooduba ku sugnaayeen makhaayadda Master Filming ayaa yimid oo Elisa iyo Selda u kaxeeyay shaybaadhka halkaas waxay ku arkeen in dhulkooda dhiig yahay labadooduba ma fahmin waxa meesha ka dhacay intii ay meesha nadiifinayeen Elisa waxa ay dhulka ka heshay firo qof leeyahay wayna soo qaadatay oo ku riday warqad bashqada kadib Selda ayaa baqday oo caawimaad u doonatay banaanka Elisa ayaana kaligeed ku hadhay shaybaadhka waxayna u dhawaatay haanti iyadoo aragtay in noolihii ku dhex xidhnaa uu dhaawacan yahay subaxdii Elisa waxay tagtay gurigii geel halkaas oo ay ku quraacdeen iyagoo TV-ga daawanaya kadib markii ay kafee cabeen geel waxa uu qaatay sawirkiisii cusbaa oo guriga ka baxay isaga oo sii baxaya ayuu yidhi haddii aan kan iibiyo hadiyad fiican ayaan kuu soo gadi doonaa habeenkii xigay markii ay Elisa shaqada tagtay waxa ay si dhuumashaa u gashay shaybaadhka halkaas oo ku xidhnaa noolihii la yaabka lahaa waxay aragtay in hadda noolahan silsilad loogu xidhay gudaha haanta waxayna Elisa fadhiisatay haanta agteeda waxayna noolahan siisay oo kun la kariyay si uu u cuno noolahani kumuusan kalsoonayn bini'aadamka sidaa darteed wuxuu isku dayay inuu baqdan geliyo Elisa si ay u cararto markii ay Elisa dib u yara istaagtay wuxuu soo qaatay cuntadii oo biyaha hoostooda la galay in cabaara kadib Strickland ayaana Selda iyo Elisa u yeedhay xafiiskiisa si uu uga mahad celiyo helitaanka farihiisa 3 saacadood kadib xogaa farihiisa waa la daweeyay laakiin ma oga in gacantiisu ay dib u shaqayn doonto iyo in kale isla markaas Strickland waxa uu arkay in qoorta Elisa ay ku yaalaan calaamado xagasho ah Selda ayaa u sheegtay in calaamadahan ay yihiin kuwa ay la dhalatay Strickland wuxuu guda galay shaqadii laga bilaabo maanta mas'uuliyadda Elisa iyo Selda waa inay nadiifiyaan qolka noolahan isla markii ay nadiifiyaanna waa inay qolka ka baxaan sababtoo ah noolahani waa mid aad u khatar badan Strickland waxa uu noolahan ka keenay qarka webi ku yaala koonfur Amerika maadaama noolahan laga soo fogeeyay gurigiisa waxa uu noqday mid aad u xanaaq badan sida uu isagu aaminsan yahay qabiilada Amazon ee deegaankaas ku nool waxay noolahan u arkaan ilaah laakiin sida uu Strickland qabo kani waa uu nooc xayawaan oo la yaab leh Elisa waxa ay hadda go'aansatay inay aad ugu sii dhawaato noolahan maalintii xigtay iyadoo ku wadata muusigna uu shidan yahay ayay ag fadhiisatay haanta iyadoo cunaysa sandwich tartiib noolihii ayaa u soo dhawaaday Elisana way kasbatay kalsoonidiisa toddobaadii kadib waxay noqdeen saaxiibo aad isugu dhow Elisa waxay luqadda dhagoolaha ugu sharaxday noolaha sida ay bini'aadamku u noolaadaan maalin Elisa iyadoo wax nadiifinaysa Dr. Robert ayaa aad u la yaabay markuu arkay saaxiibtinimada ka dhaxaysa noolahan iyo Elisa Robert wuxuu ogaaday in noolahani uu la xiriiri karo bini'aadamka Robert wuxuu markiiba u tagay Mikhailkov oo ah basaas qarsoon oo Ruusha isagoo ku nool Mareykanka wuxuu xogta wax kasta oo halkaas ka socda ugu diri jiray dawladdiisa wuxuu yiri waa inaan noolaha si degdeg ah gacanta ugu dhignaa dhanka kale markii ay Elisa shaqada timid waxay si qarsoodiya u gashay shaybaadhka laakiin halkaas ay ku aragtay saaxiibkeedii cusba oo si xun u dhaawacan waxay isku dayday inay sii dayso noolahan laakiin uu kunaya gacanteeda ka dhacday isla markaasna waxaa yeedhay dhawaq qof soo socda Elisa way dhoomatay isla markiiba Strickland ayaa yimid wuxuuna qaatay ul koronto leh sidoo kale wuxuu isku dayay in noolahan uu si isdaba joog uga xanaajiyo markii uu nooluhu xanaaqayna Strickland ayaa koronto ku qabtay Elisa way adkaysan weyday qaylada saaxiibkeed intii uu weerarka waday Strickland waxa uu dhulka ku arkay ukun wuxuu gartay in qof uu cunto siiyo noolahan isla markaas waxaa meesha yimid General Hoyt wuuna la yaabay markuu arkay noolahan ay saynisyahanadu qabteen wuxuu arkay dhiigga daadsan shaybaadhka wuxuuna weydiiyey maxaa meesha ka socda Strickland wuxuu u sheegay inuu isku dayay inuu xakameeyo noolahan Robert wuxuu sharaxay in noolahani laba siyaabood oo kala duwan uu neefsan karo taasoo u sahlaysay inuu ku noolaado bariga iyo biyahaba sidaa darteed dhanka sayniska waa mucjiso waana mas'uuliyadooda in si wanaagsan loo xanaaneeyo markii ay arkeen in nooluhu si xun u dhaawacan yahay waxay u sheegeen Strickland inuu dib ugu celiyo biyaha laakiin Strickland wuxuu rabay inuu jeexo noolaha si uu u arko waxa ku dhex jira jirkiisa kadib noolihii
isaga ayaa suuxay Robertna wuxuu kooxdiisa ku amray inay dib ugu celiyaan haanta si uu u soo kabsado Robert oo ka walwalsan nolosha noolaha ayaa General Hoyt u sheegay in dilkiisa ama jeexitaanka jirkiisa aanu ahayn go'aan sax ah laakiin generaalku wuxuu yiri waxa aan jecelahay ayaan sameeyaa ma garatay markii ay aragtay xaaladda oo dhan Elisa waxay daba gashay saynisahanada si ay u ogaato waxa ku dhici doona saaxiibkeed Elisa waxay ogaatay in hadda nolosha saaxiibkeed ay khatar ku jirto markii ay guriga tagtay Elisa waxay wax walba u sheegtay geel waxay doonaysay in noolahaas ay halkaas ka soo badbaadiso iyadoo kaashanaysa geel laakiin markuu arkay halista ku jirta shaqadan geel uu diiday inuu caawiyo wuxuuna Elisa ku yiri adiguna ha sameyn miyaad waalan tahay haddii lagu qabto xabsiga ayaa lagu dhaadhicinayaa laakiin inkastoo ay taas jirto markii ay Elisa ka tanaasuli weyday oo uu arkay saaxiibtiisa oo murugaysan noole aan la garanayn geel qalbigiisa ayaa jilcay wuxuuna diyaar u noqday inuu caawiyo laakiin gudaha wuxuu ka dareemayay in isaga iyo Elisa labadooduba ay naftooda ku waayi karaan arrintan kadib maalin uu isku dayay inuu iibiyo sawirkiisa laakiin uu ku guuldaraystay markii geel uu guriga ku soo laabtay wuxuu dareemay in sanadahan oo dhan waxa noloshiisa macna u sameynayay ay tahay saaxiibtiisa Elisa sidaa darteed geel wuxuu hadda si buuxda diyaar ugu noqday inuu caawiyo Elisa sababtoo ah wuxuu gartay inaanu haysan wax badan uu waayo dhanka kale Robert oo ahaa saynisyahan Ruusha ayaa baaritaan ku hayay shaybaadhka wuxuu u sheegay Mikhailkov go'aanka generaalka wuxuuna soo jeediyay in caawa la badbaadiyo noolaha Mikhailkov ayaa yiri in khatar weyn ay ku jirto in la badbaadiyo noolahana ay u baahan tahay hal isbuuc oo diyaar garoowa laakiin qorshaha lagu doonayo in la qalo noolaha laguna baaro jirkiisa wuxuu dhacayaa isla maalinta xigta sidaa darteed Ruushku waxay qorsheeyeen in irbad siiyaan oo ay dilaan waxay rabeen in arrintan ay sameeyaan sababtoo ah haddii ciidanka Mareykanku ay u adeegsadaan tijaabooyin waxa laga yaabaa inay gacanta ku dhigaan waxa aad u khatar badan oo Mareykanka ka dhigay mid ka horumarsan Ruushka laakiin Robert arrintan oo dhan waxba kama aysan gelin kaliya wuxuu doonayay inuu badbaadiyo noolaha maalintii xigtay markii la bilaabay in noolaha banaanka loo saaro Elisa iyaduna shaqadeeda ayay bilowday Selda waxa ay ka shakaday Elisa sidoo kale Strickland isna wuxuu isha ku hayay Elisa isagoo adeegsanaya kaamiradaha amniga si uu xafiiskiisa ugu yeedho Elisa Strickland wuxuu iska dhigay sidii inuu koob ka jabay oo kale markii Elisa ay halkaas tagtay oo Strickland la hadlay Elisa wax yaab leh ayay dareentay Strickland wuxuu ahaa nin xaas qaba haddana iyadoo ay saatahay Elisa wuxuu ku yiri waan ka helay iyadoo baqaysa Elisa alaabteeda ayay qaadatay oo orod kaga baxday meesha maxaa yeelay waxa soo dhawaatay 5tii galabnimo geelna gordho iyo gaadhigiisa la imaan doona qolka ku yaala qaybta hore markii Elisa ay xumeynaysa xagasha kaamirada amniga Robert ayaa soo galay xafiiska Strickland wuxuuna bilaabay inuu ku qanciyo inaanu maanta ku dhaqaaqin shaqadan isla markaas Robert wuxuu arkay in kaamirada amniga la khaldayo sidaa darteed Robert wuxuu jeediyay dareenkii Strickland si shaqadani u fusho si uu u fahmo waxa meesha ka socda Robert wuxuu tagay shaybaadhka uu ku xindhaa nooluhu shakigiisu wuxuu noqday mid dhaba Elisa waxay isku diyaarinaysaa inay noolahan xoreyso bedelkii uu yeedhi lahaa amniga Robert wuxuu siiyay furayaasha si ay si degdeg ah ugula baxsato tuumbada dhumashada ee shaqaalaha markii Selda ay aragtay in Elisa aanay meesha joogin xilligii laga baxayay shaqada way walwashay sidaa darteed iyada u saxiixday kaarka bixitaanka saaxiibteed si aan qofna uga shakin Elisa iyadoo gacan ka helaysa Robert ay noolihii ku qarisay dhar diiran hoostooda Robertina wuxuu Elisa siiyay talooyin ku saabsan nadiifinta biyaha iyo cuntada noolaha si ay si fiican ugu daryeesho kadib Robert wuxuu adeegsaday qalab damiyay korontadii dhismaha oo dhan wuxuuna u sheegay inay haysato 10 daqiiqo oo kaliya si ay halkan uga baxsato isla markaas Strickland wuxuu kaamiradaha amniga ka arkay baabuur aan la aqoonsan oo isku dayay inuu gudaha soo galo markaas ayuu si degdeg ah ugu orday dhankaas markii Elisa ay dhex marisay tuumbooyinka Selda ayaa halkaas timid Selda way faantay waxa Elisa ay rabtay inay samayso waxayna isku dayday inay joojiso laakiin markii ay korontadii tagtay Selda waxay go'aansatay inay si dhaqso ah u caawiso saaxiibteed sababtoo ah dib u noqoshadu hadda maysan ahayn mid caqli gala isla markii uu askariga amnigu qabtay geel Robert ayaa soo gaaray oo askarigii duray irbad suuxisa ah saynisyahanka ayaana geel u sheegay in Elisa ay ku sugan tahay banaanka dambe isagana si degdeg ah ayuu meesha uga saaray markii uu arkay noolaha geel argagax ayuu la qaboobay laakiin darbo wuxuu gartay inaanu khatar ahayn wuxuuna noolaha saaray gaadhiga kadib intii aysan qofna dhib soo gaarin geel ayaa isaga tagay goobta Strickland oo aad u cadhaysan ayaa galay shaybaadhka oona arkay in noolihii uu ka maqan yahay meesha daqiiqada kadib Elisa ayaa markii ay guriga tagtayba iyadoo kaashanaysa geel noolaha dhex jeefisay biyaha barkada lagu maydho sidii ku xusnay taladii Robert waxay biyaha ku dartay cusbo si uu nooluhu ugu neefsado dhanka kale markii generaalku maqlay warka ku saabsan maqnaanshaha noolaha wuxuu Strickland ku yiri waa inaad si degdeg ah u soo heshaa haddii kale ma noolaan doonti subaxdii xigtay Elisa waxay tagtay inay eegto webiga dhex mara magaalada ee ku dara badda waxay niyadda iska tiri bishan 10keeda ayaan ku ridi doonaa biyaha halkan sababtoo ah xilligii roobka ayaa dhawaan bilaaban doona taasoo ka dhigi doonta webiga inuu buuxsamo wuxuuna si fudud u gaari doonaa badda maalintii xigtay Elisa ayaa shaqada tagtay waxay aragtay koox xoog weyn oo raadinaysa noolaha Seldana aad bay u baqanaysay mar dambe labadooda waxaa loogu yeedhay xafiiska Strickland si su'aalo loo weydiiyo isla markiiba dadkii laga shakisanaa waa laga saaray sababtoo ah dhacdada ka hor labadooduba waxay saxiixeen kaarka bixitaanka intii Elisa ay shaqada ku jirtay geel wuxuu isha ku hayay noolaha waxa uuna si farsamaysan ugu sawirayay warqadda markii geel uu seexday noolihii wuxuu bilaabay inuu dhex socdo guriga wuxuuna ka baqay bisadu halkaas ku arkay sidan aniguba ilaa hadda u arkay inaad like saarin muuqaalka oodna hilmaamtay inaad subscribe tiraahdo channelka oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub
tahay waayo waxaan saaranahay wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe haddii aan u soo noqono muuqaalkeena markii giilo hurdada ka toosay wuxuu arkay noolihii uu cunay bisadiisa markuu arrintan arkay giil aad ayuu u xanaaqay wuxuuna ku qayliyay noolaha noolihiina cabsi darteed ayuu xoogaa dib u gurtay sidoo kalena uu weeraray giil markii Elisa ay guriga timid oo ay giil ku aragtay xaaladan aad bay u baqday laakiin giil wuxuu yidhi waan fiicanahay raadinta xayawaankaas ayaa ka muhiimsan ka hor inta uusan dhibaatooyin kala abuurin Elisa waxay u oroday dhanka shaleemada ku taala gurigeeda hoostiisa markii ay gudaha gashay waxay aragtay noolihii oo si aad u daawanaya shaashada si aad u naxariis badan ayayna noolaha ugu qanacsan inuu dib u laabto markii ay dib u laabteen Elisa waxa ay noolaha bartay sida si naxariis leh loola dhaqmo bisadaha giil sidoo kalena waxay dhayday nabarkii giil khaladkiisa dartii noolihii wuxuu raaligelin siiyay giilna wuxuu yidhi hore ayaan ku cafiyey kadibna waxaa dhacday mucjiso noolihii ayaa awoodiisa sixirka ku daweeyay dhammaan nabaradii giil khadadka ku yaala jirka noolaha ayaa bilaabay inay dhalaalaan hadda giil wuxuu fahmay sababta ay qabiilada aamusan u aaminsanaayeen inuu yahay ilaah isla habeenkaas noolihii ayaa Elisa ugu yeedhay barkada qubayska Elisa markii hore way ka labalabaysay laakiin markii ay ka fikirtay waxay dareentay inaanay wax xun ahayn si tartiiban Elisa way u jeclaatay maalintii xigtay shaqada Silda waxay aragtay in Elisa ay aad uga faraxsan tahay sidii caadiga ahayd markii Elisa ay u sheegtay sheekada oo dhan Silda aad bay ula yaabtay subaxdaas Mihailkof iyo waardiyihiisii ayaa yimid guriga Robert wuxuu arkay inay hub wataan intuu fadhiistay Mihailkof wuxuu Robert weydiiyey maxaad ku samaysay jirkiisa markii aad noolihii dishay Robert ayaa been sheegay wuxuuna yidhi waan bartay jirka noolaha oo waan baadhay Robertina si uu isku difaaco wuxuu u qaatay mindi laakiin looma baahan Mihailkof oo run mooday hadalkiisa ayaa si aamusnaan isaga tegey fiidkii markii uu la casheeyey qoyskiisa Strickland wuxuu dhex fadhiistay gaadhigiisa isagoo aad uga xun in farihiisu aysan weli shaqaynayn farihiisuna waxay u ekaayeen kuwa si cad u dhintay wax xidhanana lama leh jirka intiisa kale dhanka kale Elisa waxay gurigeedii la joogtay jacaylkeedii cusba waxay go'aansatay inay biyo ka dhex buuxiso suuliga oo dhan si nooluhu u helo meel ballaaran laakiin buuxitaanka biyaha awgood tiyaatarka hoose ayaa bilaabay inuu biyo soo daayo markii ninkii iska lahaa guriga uu ogaaday arrintan wuxuu bilaabay inuu soo garaaco albaabka Elisa dhanka kale giil wuxuu isku dayay inuu ninka guriga la ku dajiyo bannaanka wuxuuna yidhi aniga ayaa wax walba hagaajinaya mudane dhankaaga aniga caan xoogan u jeedinaya gabadhan markii giil ogalay guriga Elisa wuxuu arkay in Elisa iyo noolihii ay ku xidhan yihiin suuliga isla markii uu furay albaabka suuliga dhammaan biyihii oo dhan ayaa ku faafay guriga oo dhan giil wuxuu arkay in Elisa ay isku duubtay noolihii markii xilliga roobka la gaadhay Elisa waxay ku fakartay inay tahay inay si degdeg halkan uga dirto noolahan markii maalmuhu socdeen xaaladda nooluhu way sii xumaatay wuu daciifay Elisana hadda way walwashay dhanka kale generaalku wuxuu dib ugu yimid Strickland wuxuu u sheegay in haddii uusan noolaha soo helin 36 saacadood ee soo socota inaysan jirin baahi uu shaqada ugu soo laabto markii ay gaadhay bisha 10keedii Elisa waxay dareentay murugada ka fogaanshaha jacaylkeeda waxayna bilowday inay ku riyooto iyadoo la ciyaaraysa noolaha dadka hortooda waxayna bilowday inay sawirato adduun aanay ku khasbanayn inay qariso jacaylkeeda laakiin waxay ogaadeen in riyadani aanay weligeed rumoobi doonin habeenkaas Strickland wuxuu isha ku hayay bannaanka guriga Robert wuxuu shaki weyn ka qabay in Robert uu ku lug leeyahay baxsashada noolaha markii uu arkay Robert oo guriga ka baxaya Strickland uu dabagalay waxaana la arkay waardiyihii Mihailkof oo toogtay Robert kadibna markii uu fursad helay Strickland ayaa toogtay waardiyihii wuxuuna bilaabay inuu jir dilo Robert oo dhaawaca si uu uga ogaado halka uu nooluhu joogo kadib jirdil xoogan oo ka yimid Strickland Robert ayaa sheegay runta in gabadha wax nadiifisa Elisa ay xaday noolaha isla markii uu maqlay arrintan Strickland wuxuu gaadhay guriga Silda taasoo cunto u karinaysay ninkeeda markii ay aragtay maamulaheedii Silda way baqday Stricklandna wuxuu bilaabay inuu handado Silda si uu u weydiiyo halka uu nooluhu ku sugan yahay intii uu Silda weydiinayay ciwaanka fartii Strickland ayaa dhaawacantay aad ayuu u qayliyay taasoo Silda aad uga sii baqday markii uu arkay xaaskiisa oo baqanaysa ninka Silda ayaa u sheegay inuu maqlay Silda oo telefoon kula hadlaysa Elisa waxayna ka wada hadlayeen Noole Strickland wuxuu uga mahad celiyay ninka Silda xogtan wuxuuna u amabaxay guriga Elisa isla markii uu baxay Silda waxay u cadhootay ninkeeda waxayna bilowday inay la hadasho Elisa isla markii ay Elisa ogaatay wax walba guriga ayay ka baxday iyadoo wadata noolaha Strickland ayaa si xoog ku galay guriga Elisa guriga oo dhan ayuu baaray laakiin waxba kama uusan helin laakiin qoraalkii Elisa ay ku qortay jadwalka kalendarka ayuu Strickland akhriyay wuxuuna gartay meesha ay la aaday noolaha isla markii Elisa ay macasalaameysay noolaha Strickland ayaa goobta soo gaaray oo xabad ku dhuftay noolihii sidoo kalena wuxuu xabad ku dhuftay Elisa giil ayaa alwaax ku dhuftay Strickland taasoo ka dhigtay inuu suuxo intaas kadib giil wuxuu si degdeg ugu orday dhanka Elisa isla markaasna khadadkii ku yaalay jirka noolaha ayaa dhalaalay dhaawacii rasaastuna uu bogsooday isagoo xanaaqsan noolihii ayaa hadda u tagay Strickland wuxuuna la soo baxay cidihiisa oo kaga gooyay dhuunta isla markaas Silda oo la socota booliiska ayaa goobta timi iyadoo u murugaysan Elisa giil wuxuu noolaha ka codsaday inuu qaato jirka Elisa noolihiina isagoo wada Elisa ayuu ku dhex booday biyaha isla markii uu dhunkaday Elisa wuxuu awoodiisa sixirka ugu bedelay calaamadahaas daloolo lagu neefsado taasoo la macnaa in hadda Elisa ay ku dhex neefsan karto biyaha ilbiraqsiyadii xigana Elisa way toostay waxayna ku neefsanaysay biyaha dhexdooda naftii Elisa waa la badbaadiyay waxayna hadda awood u leedahay inay ku dhex neefsato biyaha hoostooda adiguna waxaad like saaraysaa muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto sidoo kalena waxaan ka codsanayaa inaad subscribe tiraahdo channelka oo aad nagu soo biirto waxayna ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga